السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeennii labaad. maanta waa sabti taariikhduna waa 31 bisha Janaayo sanadka 2026. qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa kamid ah Iiraan oo wax la yaab leh soo bandhigtay galabta. warbaahinta ayay isugu yeereen waxay u soo bandhigeen qubuuro cusub oo ay sheegeen in loo diyaariyay ciidamada Mareykanka ee ay ku layn doonto haddii ay soo weeraraan Iiraan gobolka bariga dhexe. qabuurahoodii la sii diyaariyay sheekaya blayaan idinkaga haya aayatullaahiga oo markii ugu horeysay lagu arkay isagoo oo booqanaya qabriga aayatullaahigii isaga ka horeeyay xilli xiisadu ay cirka marayso u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. qaraxyo maanta ka dhacay Iiraan gudaheeda. haddaba maxay ahaayeen qaraxyadaas iyana barnaamijkan idinku faahfaahin doona. qaybta ugu dambaysa waxaan idin hayaa xuutiga oo la sheegay in gantaalihiisii uu ku soo beegay badda cas halka ay fadhiyaan ciidamada Mareykanka. haddaba wararkaas iyana waan idin hayaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo sabti ah ku soo qaadanayna. inta aan ku jirno asxaabay wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. kala asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad. maanta waa sabti. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa qaraxyo ayaa maanta la sheegay inay ka dhaceen 2 goobood oo ka tirsan gudaha dalkaasi Iiraan. haddaba qarax ayaa wuxuu ka dhacay guri ka kooban ilaa 8 dabaq magaalada la yiraahdo Bandar Abbas oo ku dhow dekada meel ku dhow Bandar Abbas, iyadoo Bandar Abbas oo koonfurta Iiraan ku taala ay u dhowdahay meesha la yiraahdo Hormuz. haddaba wararkii markii hore soo baxay waxay sheegayeen in sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka lagu dilay qaraxyadaas, laakiin markii dambe ciidanka ilaalada kacaanka waray soo saareen waxay sheegeen in warkaas uu been yahay, wax ka jirana jirin. guryo ay ciidanka ilaalada kacaanku leeyihiin oo wax soo gaarayna aanay jirin, laakiin qaraxa uu meelo kale ka dhacay. haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa qoray wuxuu leeyahay 2 qarax ayaa waxay ka dhaceen koonfurta Iiraan. mas-uuliyiintu waxay beeniyeen in dil qorshaysan uu dhacay oo lala beegsaday mas-uul ka tirsan ciidamada waddanka Iiraan. haddaba 2 qarax ayaa maanta oo sabti ah waxay ka kala dhaceen gobolka la yiraahdo Hormuzgan oo ku yaala koonfurta Iiraan. haddaba waxaa la sheegay in arinkaasu ilaa hadda baaritaan lagu hayo, waxaana ay warar soo baxay sheegayeen in sargaal ka tirsan ciidanka Iiraan halkaa lagu dilay, laakiin markii dambe way beeniyeen. warbaahinta Iiraan waxay xaqiijisay inaanu jirin dilka ninka sargaalka oo markii hore lagu sheegay inuu yahay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee u qaabilsan dhinaca badda. haddaba guri ka kooban 8 dabaq ayaa la sheegay oo ku yaala magaalada la yiraahdo Bandar Abbas oo markaa iyadu ku dhow dhanka dekada in markaa la sheegay qaraxa inuu ka dhacay. wakaalada wararka ee Iiraan ee la yiraahdo Faris ayaa sheegtay in guriga la sheegay 2 dabaq oo ka mid ah in burbur xoog leh uu soo gaaray, baabuur hortaalay guriga iyaguna ay ku burbureen. marka qaraxyadu marka waxaa leeyahay guriga 2 dabaq oo ka mid ah qaraxday, marka waxba lagu xiray ama waxba loo dhuftay, baabuur hortaalena dhibaato soo gaartay. laakiin waxaa la yaab leh Israa'iil markiiba way soo boodday, waxay tiri anaga ma nihin ogaada wax shaqo ah ku leenahay qaraxyadaas male. marka hawshaas marka qaraxyada wararkii marka ugu horeeyay waxay sheegayeen in Israa'iil lagu dilay, laakiin waxaa leeyahay cid Iiraan laga dilay male, baaritaanna waa lagu hayaa qaraxyadaas. qodobka halkaas aan kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka ugu xiisaha badan wuxuu yahay nimankii Iiraaniyiinta waxay diyaariyeen qabriyo cusub ay diyaariyeen, qubuuro loo diyaariyay ciidamada Mareykanka. wariyaasha loo wacay qabuurahana u diyaarinay dheheen ciidamada Mareykanka ee soo weerari doona Iiraan. marka Iiraan soo weeraraan qubuurahana ku xabaali doonaa.
wayna qaadan doonaan mustaqbalka laakiin si ku meel gaar halkan ugu xabaalayna marka meeshii lagu xabaali lahaa waa diyaarinay urkooda iyo qashinkooda waxooda inay meelaha ku daataan marka ilaa xad in baan ugu talagalnay laakiin inta haday ka bataan qabuuro kale ma haynay nimankii waxaa leeyahay wakaaladii warkii dhaqaatay Mareykankii badda joogay inay Iiraan weeraraan la rabay ee maraakiibta saarnaa markii loo sheegay qubuurahooda inuu ka qodan yahay Iiraan mid walba cabsiya ku soo degdaalle nimanka Iiraaniyada niman caadiya ba waxay barteen sida social media loogu dagaalamo sida qofka loo niyad jabiyo sida loo argagax geliyo Trump asagu wuxuu islaha argagax gali Iiraaniyiin laakiin hadda askartiisii asagu maalin horena waxay yiraahdeen Soomaalida waa idin sheegay maalin hore waxay yiraahdeen ciidamada hadar daarmeen dadka eheladooda hala dardaarmeen kuwa saldhigyada jooga halkan bariga dhex maanta waxay keeneen qubuurihii keeneen babaad oo diyaarsan halkaana la gelinay waa u diyaarina qabriyadu haddaba aan tusoo wararkii ugu waaweynaa ee sheekada laga qoray telefishinka Al Jazeera oo kamid ah wariyaashii la tusay oo loogu yeeray ayaa waxaa la sheegay in Iiraan ay diyaarisay qabriyo askarta lagu dili doono maaragtay dagaalka dhici doona haddaba wakaaladda wararka ee Mahar ee dhanka Iiraan ayaa waxay sheegtay in urur la yiraahdo Bahshat Zahra uu diyaariyay una isku dubariday goobihii lagu xabaali lahaa askarta dhiman doonta ee Mareykanka marka ay soo weeraraan Iiraan goobtan qabuuraha waxa laga diyaariyay nawaaxiga magaalada Tahraan waxaana lala yaabay oo ay ku tilmaameen warbaahintu sheeko aan horey loo arag inay tahay tan oo markaa xadkii hanjabaada iyo bootada waa dhaaftay nimankan maalmahan oo dhan bootay raaxada isaga qaadeen iyo hanjabaad iyo cagi juglayn waaba la dhameeyay maanta qabrigaagii halkaa ku diyaarsan ninkii la yiri maxaa u haray wax u haray ma jiraan marka meeshaas iyaduna halkaasay baraysaa warar kale oo warbaahinta Israa'iil iyaguna ay qorayaan goordhow waxay leeyihiin aroorta axadda ayaa dhici karta in la weeraro waa 1 bisha marka ay tahay waa berito moogtay waa caawa saq dhexe meelahaas 3 habeenimo meelahaas weerar dhici doona sida warar aynu ka helnay leeyihiin laakiin waa arki doona hore loo sheegay 31 ilaa 1 February waa idin sheegay marka hadii caawa weerarka dhacana waa arki doonaa waaye qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno xogo ayaa la soo dusiyay oo la helay xuutigu inuu diyaarsaday gantaalihiisa wuxuu dul dhigay Bahrul Ahmar badda cas saasa loo dul dhigay Mareykanka dhaqdhaqaaq ka bilaabay markaba wuxuu geeyay ilaad iyagu marka horeba waa u saarneed gantaalahoodii way ku dhacayeen iyo droniskoodii dhankan kale ilaa badda cas dhulkaan oo dhan Mareykankii joogay iyaguna waa la dul saaray arwaakaas Iiraan weerareen hadda xogtii soo dusto waxa leeyahay nimankii waxa la ogaaday jabalada dhexdooda inay gantaalo ka soo bixiyeen oo ay meelo kale ku rakibeen oo ay diyaarsadeen Bahrul Ahmarna malaaxiga ama wixii marayay meeshaas haddaba iskaga tageena macnaha ay leeyihiin warbaahintu waxay leeyihiin nimanka way ku rakibteen gantaalood marka sheekadaas iyaduna way cusub tahay oo dhanka xuutiga ayaa laga helay haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay warbaahinta waxay qoraysaa in xuutiyiintu ay gantaalahooda u soo weeciyeen dhanka Bahrul Ahmar ama badda cas inay u soo jeediyeen haddaba wararkii ugu dambeeyay warbaahinta waxay leeyihiin warbixino la helayo ayaa sheegaya jamaacada xuutiyiinta in 4 kamid ah gantaalahooda halista ah ay markaa ku jeediyeen oo ay geeyeen deegaanka la yiraahdo Harf Safiyaan oo ka tirsan gobolka Amraan mandiqada iyadu dhanka beeraha iyo waxyaabahaas laga shaqeeyo saldhig meel military oo u dhow ayaa la rumaysan yahay in gantaalaha qaar halkaa la geeyay oo buuro ah oo markaa ay ugu talagaleen in ay ku weeraraan Bahrul Ahmar
badda cas maraakiibta maraykanka ee halkaa joogta in iyaguna ay halkaa ku weerari doonaan. warkaas isaguna waa cusub yahay. warbaahinta Yemen iyo ayaa ka hadlaya sheekadan, ayaguna waxay leeyihiin nimankaasu dagaalay u diyaar garoobeen, gantaalahoodii way la soo baxeen. Iiraan marka la weeraro iyaguna jugtay ka gelinayaan wixii meelaha jooga Maraykanka. wax la isu dhaafay male. marka xaalku halkaas ayuu joogaa hadda. wararkii ugu dambeeyay qadar xayeysiisa kadib aayatullaahiga oo maanta la arkay oo ay warbaahintu soo bandhigeen xilli Maraykanka ay hanjabaado fara badan Iiraan ay ku hayaan. asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad. maanta waa Sabti. wararkii ugu waaweynaa bariga dhexe ayaa noo socda weli tan iyo intaynu kala maqnayn. wixii soo kordhay waxaa ku jira warkan ugu dambeeya barnaamijka labaad aanu ku soo qaadanayno. waa aayatullaahiga Iiraan oo maanta la arkay. haddaba xaggee lagu arkay aayatullaahi? maalin hore waxay warar soo baxay sheegayeen inuu meel qarsoodiya la geliyey oo dhulka hoostiisa uu baqayo. waxaas waraa dhegaysto dhaan cidaan ka cabsanaa male, meeshaa raba waa tegayaa. marka maanta wuu soo baxaa la yidhi qabrigii wuxuu tegay aayatullaahigii isaga ka horreeyay ee kacaankan islaamiga aas-aasay. aayatullaahi ruuxullaahi Khumeyni aldhahay ninkaana waxaa layihahdaa aayatullaahi cali Khamenei. marka aayatullaahi ruuxullaahi Khumeyni qabrigiisii ayuu isagoo booqanaya sawiro warbaahintii ka soo qaadeen oo leeyahay u ducaynaya ninkii aayatullaahiga ahaa, kacaankii aad dhistay islaamiga ahaa ila burburiyaa la doonaya, laakiin cid wax u dhimi karta ma jirto isagoo leh. haddaba markaa la tusoo wararkii ugu dambeeyey telefishinka Sky ayaa wuxuu leeyahay waxaa lagu arkay qabrigii ninkii isaga ka horreeyay videogii ugu horreeyay oo lasoo bandhigo Khamenei oo muddo isbuuc ah la arko isagoo meel ku sugan. haddaba warbaahinta rasmiga ee Iiraan ayaa maanta Sabti ah waxay faafiyeen sawiro muujinaya video laga soo qaaday aayatullaahiga Iiraan cali Khamenei kaasoo markii ugu horreysay soo muuqday tan iyo muddo isbuuca markii xaaladda ay soo kacday oo xaaladdu ay cirka gashay. Khamenei ayaa booqday meesha uu ku xabaalan yahay aayatullaahigii isaga ka horreeyay Khamenei, waxaana la gaaray sanad guuradiisii 47 ee kacaanka Iiraan markii la aasaasay. 47 sano wixii uu aasaasay ayuu markaa sanad guuradeedii ayuu booqday ninka qabriga ku jira. marka iyaduna wararkii ugu waaweynaa ayay ka mid tahay. barnaamijkaygii labaad intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. ku xirnaada mar walba barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan. haddaba wixii soo kordha waan isla socon doonaa inagoo mar walba warbixinadaanu idiin soo gudbinayno kasoo xigana warbaahinta. like garay oo share garay haddaad nala socotid. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe-ka ka iloobi youtube-ka, facebook-na follow garay si aad noogu soo biirto. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.